waxay diiday inay ninkeeda la cuntaydo isagoo hooyadiis la jooga. qiso xanuun badan oo nin iyo hooyadiis iyo xaaskiisa dhex martay. daawad waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkana like saarto. wiil dhalinyaro oo agoon ka ah aabihiisa hooyadiisna ay ku soo tarbiyay daacada Ilaahay ilaa uu ka baxay jaamacadda. kadibna shaqaystay shaqo fiican. markii uu damcay inuu guursado ayay hooyadiis ugu nasteexayday inuu guursado gabar leh akhlaaq wanaagsan iyo diin, uguna kaalmaysa Ilaahay cabsidiisa, gacantiisana jannada u qabata. laakiin wiilka qalbigiisa ayaa ku dhagay gabar ay arday wada ahaayeen xilligii jaamacadda, kana soo jeeda qoys dhaqaale haysta. waxay ahayd mid qurux badan, laakiin akhlaaqaheedu ma fiicnayn. wuxuu naftiisa ku yiri, waan awoodaa inaan bedelo, kana dhigo mid daa'imta salaada, quraanka akhrintiisa iyo camalka wanaagsan, kaasoo Ilaahay raali gelinaya Azza wa Jalla. arrinta bilowgeediiba xaasku kuma aysan waafaqin wiilka inay hooyadiis kula ag noolaato, laakiin eheladeeda ayaa u sheegan wiilku inuu haysto shaqo iyo mansab fiican, hooyadiisna ay tahay duq oo dhimanaysa 2 sano kadib. markii sidaas loo sheegay ayay ku qanacday inay la sii noolaato. markay dhamaysteen bishii malabka, maalintii koowaad oo ayada iyo sodohdeed ay ku kulmeen xeerada cunnada, xaaskii ayaa ka istaagtay xeeradii cunnada waxayna gashay iyadoo careysan qolkeeda. wiilkii ayaa markuu hooyadiis cunnada la dhamaystay kadib uga daba tagay qolkeeda si uu u ogaado sababta ay uga soo fogaatay. waxayna tiri, hooyada horteeda waan ku kala fognahay, waxay iga dhex gashay macaankii noloshayda. waxaa lagama maarmaana inaad xeero kale keligeeda ku siiso cunnada, maxaa yeelay maanta kadib ku kulmi mayna aniga iyadu xeerada cunnada. joogidda ay nala joogto ayaa ciriirina gelisay. wiilkii ayaa u yidhi si deggan, sidaad og tahay hooyaday ma dhalin qof aan aniga ahayn, oo keligay ayaan ku ahay, waana shayb oo waxay iga baahan tahay ilaalin. xaaskii ayaa tiri, hadday saas tahay geed daarta muslimiinta ee waalidiinta lagu xanaaneeyo. haddii aadan sidaas samaynayna waxaan aadi doonaa gurigeennii. wiilka isagoo dhoola caddaynaya ayuu yidhi, waa fikrad qurux badan, laakiin aabbaha ayaa ila soo xiriiray intaan hooyo cunnada la cunaayay, wuxuuna nagu casuumay dhammaanteenna berri gurigiisa. xaaska ayaa tiri, markaan xeerada ka soo tagay miyaad wacday? berri waan ogaanaynaa wixii dhaca, laakiin hadda waan seexanayaa. markay intaas tiri ayuu wiilku u laabtay hooyadiisa, waxayna weydiisay wixii dhacay. wiilkaygiiyow, ma jiran tahay xaaskaaga oo saas darteed miyay cunnada uga tagtay? haddii ay jiran tahay waan tegayaa, waxaana u keenayaa dhakhtar. waa xaaraam inay seexato iyadoo jiran haddana gaajoon. wiilkii ayaa yidhi, isdeji hooyoy, wax yar ayay nasanaysaa, kadibna way cuni doontaa. berrina waan tegaynaa oo waxaan ku geynayaa meel ay wax kasta isku beddeli doonaan. laakiin hooyoy, waxaan kaa rabaa inaadan idhibsan oo aadan igu dhaliilin waxyaalaha aan samaynayo. hooyadii ayaa tiri, waxaan jeclaan lahaa inaad arrinta ii sharaxdo. markasta waxaad sameeydaa wax Ilaahay raali gelinaya, sideen kaaga hor imaanayaa? maalintii ku xigtay, wiilka iyo hooyadiis iyo xaaskiisa ayaa aadeen guriga xaaska ehelkeeda. kadib waxaa la soo diyaariyey xeeradii cunnada. aabbihii gabadha ayaa la kali noqday wiilkii dhalinyarada ahaa oo gabadhiisa qabay, wuxuuna u sheegay inay gabadhiisu ka murugaysan tahay la noolaashada hooyadiisa, xaqeedana ay ka mid tahay inay la noolaato keligiis. aabbihii ayaa ku handaday wiilka inaysan gabadhu ku laabanayn gurigiisa haddii uusan aqbalin dalabkeeda. wiilkii ayaa dhoola caddeeyey, kadibna wuxuu aaday xeeradii cunnada. hooyadiisna xaggaas kama uusan helin iyadoo fadhida. markuu halkaas ka waayey ayuu ogaaday inay xaaskiisu waday oo geyday jikada, kadibna ay shaqaalayaalka cunnada ugu dartay. wiilka ayaa fiiriyey gabadh ehelkeeda ayagoo fadhiyaan xeerada cunnada agteeda, wuxuuna si caraa u yidhi, ma awoodo inaan idinla cuno cunno, maxaa yeelay waxaad tihiin dad aad u qalbi adag, wax naxariisan aan lahayn. waxaad iigu yeeraysiin inaan fogeeyo hooyaday oo ku soo dhibtoostay kuna soo xanuunsatay inay aniga ay tarbiyeyso. waxaad tihiin qoys aad u adag, aysan suuragal ahayn inaan xiriir la sii sameeyo. kadibna hooyadiisa ayuu u wacay, wayna soo baxday iyadoon waxba ogeyn. xaggeeda ayuuna u orday isagoo ilintu ay dhafooradiisa ka da'ayso. wuxuuna ka dhunkanayay gacanta iyo madaxa, wuuna qaadayay cagahana wuu ka dhunkanayay. hooyadiisa ayuu ku yidhi markuu laabta geliyey oo xambaaray kadib, hooyadayey, raali noqoshadaada igu gee jannada. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. kadib wuxuu fiirinayaa xaaskiisa ehelkeeda, wuxuuna ku leeyahay, waxaa ii sugnaaday jannadayda, adinkana adduunyadiinna. isagoo ula jeeda xaaskiisa, agtiinna ayaan uga tagayaa muddo bil ah anigoon furin. hadday rabto inay ii soo laabato ayadoo aniga iyo iyaduba aan shaqaalayaal u nahay hooyaday, waan soo dhawaynayaa. hadday sideedan ku sii adkaysatana
waxaa soo gaari doonta warqadda furiinkeeda bil kadib. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب